waxaan ku bilaabayaa barnaamijkayga marka hore inaan tacsiil la qaybsado ummadda Soomaaliyeed geeridii ku timid marwadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed marwa Xaawa Cabdi Samatar oo geeriyootay waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay ilaahay samirka naga siiyo walaasheen oo ahayd marwadii hoggaanka dalka qadarin iyo sharafna ka badan ummadda Soomaaliyeed markaan inta ka gudbo waxa maanta farxad ii ah in aan hortiina imaado mudanayaal iyo marweyn iska kiin baro aadna igu aamintaan mas'uuliyadda sare ee dalka magacaygu waa Cabdinuur Sheekh Maxamed waxaan ahay aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka dabqaday xaaladda siyaasadda guud ee Soomaaliya iskuna tuhunsan inuu wax ku soo kordhin karo khibrad aqoon xirfad maamul hoggaan wada shaqayn akhlaaq alla ka cabsi iyo kaydin amaanada qaranka mudanayaal iyo marweyn waxayna wada saaran mas'uuliyad u baahan inaan ilaalino oo ah amaano waxaan idin weydiisanayaa inaad igu aamintaan hoggaanka dalka idinka oo ku shaqaynaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed oo aad ku matashaan baarlamaanka xildhibaan u heli dalka u heli dadka u heli diinta dooro hoggaan ehel u ah qaran iyo dowladnimo dooro Cabdinuur Sheekh Maxamed waxaan noqon doonaa haddii alla yidhaaho madaxweyne sharciga oo hoggaansan kuna shaqeeya federaalka aaminsan dowlad goboleedyada la shaqeeya mucaamalad ay kala dhaxayn doonto xildhibaanada dowlad goboleedyada ku matala baarlamaanka Soomaaliya raadiya keenana dowlad wanaag dhab ah oo aan istustus ahayn waxaan noqon doonaa madaxweyne damqasho u leh shacabka Soomaaliyeed una tura uma ciina dadka dhiban la dagaalama cadaalad darrada xoojiya wada tashiga iyo wada shaqaynta dowladda oo aan caadifad ku shaqayn oo la tashada aqoonyahanka iyo xubnaha golayaasha dastuuriga marka aan leenahay u tura shacabka Soomaaliyeed iyo dadka maaragtay aad mas'uulka ka tihiin Allah subhanahu wa ta'ala isagoo la hadlay nabigiisa inagana noo soo gudbinay wuxuu leeyahay ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim fabima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين hoggaanka ummadda waxaa looga baahan yahay in uu u turo soo dhoweeyo u jalaaco wanaajiyo dadka uu mas'uulka ka yahay si dadku ay u soo dhoweystaan hoggaankooda ulana shaqeeyaan xildhibaan marka laygu aamino oo aad igu aamintaan hoggaanka dalka oo lay dhaariyo waxaan ballan qaadayaa inaan gudbin doono ama iska dhiibi doono baasaboorka ajnabiga ah ee aan wato anigoo mahad iyo qadarin u haya dowladdii iyo shacabkii i soo dhoweysay wax i bartay oo muwaadinkooda iga dhigtay oo mahad weyn uga haya bacda Allaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u madax bannaanan doonaa haddii alla yidhaaho inaan noqdo muwaadin Soomaaliyeed oo xor u ah fikirkiisa iyo go'aamadiisa ammaanadu waa shay muhiim ah oo runtii u baahan madax bannaani iyo inaanan lagu daba taagnaan oo adiga ay kaa bilaabato haddaad tahay hoggaanka dalka Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu na xasuusinayaa marka uu leeyahay إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلهي وحو إليه وحنكو آمني ونري قاذا مسؤوليتي إسلامك إيو إن ماركتي أمانة لهايو أمانة سوء وناقو ولا سماي حماتي ولا سكرهيو يا وحن ويدسنا عركي إيو دولكي iyo buurihi
way diideen wayna ka cudur daarteen waxayna yidhahdeen ma qaadi karno laakiin ibni aadam baa qaaday waxaana keenay inuu yahay daluum iyo jahuul walciyaadu billaah hoggaanka soomaaliyeed waxaan u baahannahay inuu ammaanada u ilaaliyo sida allah subxaanahu wa tacaala ugu talagalay ammaanadaasoo ah qaran dowlad shacab xeebo magaalooyin degmooyin u baahan in la kobciyo la ilaaliyo loo shaqeeyo mudane iyo marwo waxaan idinka codsanayaa inaad u hiilisaan dalka diinta iyo dadka oo aad doorataan hoggaan ehel u ah hoggaanka soomaaliyeed inaad doorataan walaalkiin cabdinuur sheekh maxamed barnaamijkayga siyaasadeed hadduu alla yidhaahdo wuxuu ka koobnaan doonaa qodobadan soo socda waxaan muhiimad siin doonaa mas-uuliyadda xilka iyo ammaanada oo aan ilaaliyo mas-uuliyadda dalka iyo ammaanada oo aan ilaaliyo waxaan la imaan doonaa fakar iyo maskax ka madax bannaan raadkii dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray waxaan dhowri doonaa dhammaan xeerarka noo yaalla oo uu ku jiro muddo xileedka xafiiska madaxweynaha waxaan leeyahay aqoon iyo waayo aragnimo baahsan oo uu dalku u baahan yahay waxaan ka fogahay musuq maasuq iyo wax la yidhaha dhaqaalo doon waxaan ahay qof alla ka cabsado dhaqanna u leh raacidda sharciyada iyo ku dhaqanka diinta islaamka waxaan soo celi doonaa adkaynta cadaaladda dalka hergelinta garsoor oo madax bannaan mudane xildhibaan kaasoo ka fog eex iyo musuq maasuq ayna u wada saman yihiin dhammaan muwaadiniinta oo dhan wuxuu u baahan yahay in laga fekero laga baarandego oo cadaaladda dalka lagu soo celiyo isla mar ahaantaa waa inuu barnaamijkaasi sugaa xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadin kasta soo celinta adkaynta cadaaladdu waxaa ka mid ah in la helo nidaam garsoor oo sugaya in muwaadinku ay ku kala sarreeyaan oo keliya mas-uuliyadda dalka laakiin ay u siman yihiin xuquuqdooda waxaan kaloo saari doonnaa diiradda amniga qaranka oo si qorshaysan loo abaabulo waxaan ka shaqayn doonaa sidii amisom ama barnaamijka cusub ee hadda lala soo baxo la yidhaahdo barnaamijkan amisom oo ah barnaamij qorshaysan oo aan u baahannahay in dalka lagu soo wareejiyo amnigiisa ciidamada qaranka soomaaliyeed amnigu waa shay muhiim ah dalku wuxuu u baahan yahay barnaamij baxsan waxaan wada hadal la geli doonnaa hadduu alla yidhaahdo barnaamij baahsan oo wada hadal iyo xiwaar dhex mari doona dowladda aniga aan madaxda ka ahay iyo kooxda argagixisada ee al-shabaab waxaan u furi doonnaa gogol ummadda soomaaliyeed ay markhaati ka tahay la soo abaabulay oo looga hadli doono waxa ay ka dan leeyihiin soomaaliya cidda ay u adeegaan iyo hadday yihiin muwaadiniin raadinaya inay dalkan taladiisa wax ka galaan oo lagu soo dhowaynayo haddii ay taa diyaar u yihiin haddii taa la waayo waxaan diyaar u nahay inaan ummadda soomaaliyeed oo dhan aan u jihayno inay dalkooda ka xoreeyaan al-shabaab oo ay u istaagaan shacab iyo beelo iyo dowladba in arrintaasi xal loo helo senator xildhibaan u hiili dadka iyo diinta dooro hoggaan dalka u hiiliya dooro cabdinuur sheekh maxamed barnaamijkaas amniga ah waxaa ka mid ah wacyigelin baahsan oo diin iyo dhaqan mid walba leh oo la siin doono dhallinyarada iyo dadka u nugul nidaamka shabaab oo aan uga saareenno oo aan ku soo jiidanayno qulubtooda inay dowladda taageeraan dowladdan la shaqeeyaan waxaan samayn doonaa dib u heshiisiin waafiya soomaaliya waxay u baahan tahay walaalayaal dib u heshiisiin waafiya kama dhicin soomaaliya dib u heshiisiin beeleed mid shacbiyeed oo runtii dib maaragtay loo eego wixii dhacay khaladaadkii dhacay xalay dhalayna laga dhigo waxaan ballan qaadayaa haddii lay doorto in aan bilaabi doono barnaamij baahsan oo wadatashi ah oo maaragtay dib u heshiisiin ah dhammaystirka dastuurka waa waajib si dalku uu horumar u gaaro
وإن لا دسا قولها هذه قرصورك محكمة الدستورية افتقار اللقاضة دورشو قف يعوضه لا سميا هدو اللي يراهدو انت الحكم كهايو waxaan ka dhigaynaa wax aanan dib dambe u soo noqonin doorasho dadban qodobka kale wuxuu yahay Somaliland iyo walaalaheena waqooyiga waxaa jiray in wada hadallo badan la sameeyay oo aanan ahayn kuwa dhab ah oo aanan ahayn kuwa laga baaran degay oo aanan ahayn kuwa dadkii ehelka u ahaa aysan miiska fadhin waxaan ballan qaadaynaa in aan bilowno wada hadal dhab ah oo aan u raadino dadkii ehelka u ahaa yaqiinay taariikhda Soomaaliya iyo Somaliland iyo dalkan meeshu ka soo bilowday wada xaajooda labada dad oo walaalaha ah qaladaadkoodii saxa dib isugu soo celiya oo walaaltinimo raadiya waxaana sameyn doonaa barnaamij insha Allah guul keeni doona oo ummadda Soomaaliyeed ay u riyaaqi doonaan haddii la yiraahdo haddii la doorto waxaan ka dhigi doonaa madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed villa Soomaaliya meel ay isugu yimaadaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ah gogol Soomaaliyeed oo fidsan oo madaxweyne qarameed oo nabadoon ah uu fadhiyo ma noqon doonto meel koox gaar ah meel team gaar ah ay maamushaan ee waxay noqon doontaa gurigii ummadda sida magacu u ahaa waxaan ballan qaadayaa inaan noqon doono madaxweyne u madax bannaan go'aan qaadashadiisa oo aan gadaal laga haagin oo aysan wadan koox ama dawlad shisheeye oo go'aanada hay'adaha dastuuriga la wadaagi doona hay'adaha qaranka oo keliya walaalayaal waa muhiim in hoggaanka dalka uu madax bannaan yahay oo uu ka madax bannaan yahay koox oo uu ka madax bannaan yahay dawlad shisheeye oo uu yahay hoggaan Soomaaliyeed oo ku dhaqma mabaadi'da iyo nidaamka ummadda Soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha si loo adkeeyo mustaqbalka dalkeena waxaan ku dadaalayaa inaan kobciyo dhaqaalaha shaqo abuur baahsan u sameeyo dhalinyarada aad ka baaratay oo shaqala oo 75% ah oo qaarkood tahriib iyo xaq jirnimo ay galaan annagoo xoogga saarayna kheyraadka dalkeena oo ay nagu manaystay sida beeraha xoolaha iyo badda xiriirka dibadda waxaan soo celinaynaa in dad oo maaragtay ehel u ah siyaasadda dalka ay hagaan siyaasadda oo ay xiriir wanaag la yeeshaan dawladaha dariska xiriir wanaagsan la yeeshaan dawladaha kale ee maaragtay Soomaaliya danaha kale xiriirkaas oo noqdo mid siman oo aleelahay aanan ahayn maaragtay mid dawlad ay dawlad kale proxy wax loo yaqaan u noqoto Soomaaliya cidna proxy uma aha waa dal xor ah oo xalaal ah oo leh maaragtay dastuur iyo nidaam dawli ah arrimaha Soomaalinimo waxaan isleeyahay dawladda federaalka Soomaaliya waa hay'adda kaliya ee ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay wadaagaan dawladda federaalka Soomaaliya aniga aan hogaamiyo waxay matalaysaa muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo baahidiisa dhibaatadiisa danihiisa la tacaalkiisa ama qaxooti meel kale ha ku ahaado ama waddan kale ha deganaado waxaan sameynaynaa barnaamij lagu soo dabaali doono Soomaalidu inay yeeshaan waddan ay u soo laabtaan oo soo dhaweeya oo barnaamij leh oo maaragtay dantooda ilaaliya waxaan isleeyahay waqtigii dalka uu hagi lahaa qof aqoon-yahana oo daacada oo dawladnimada yaqaan waa la gaaray waqtigii maaragtay ila meerayso oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada iyo maaragtay xiriir ay ku jirto waa laga baxay tiihii 30 sano soo jiray waa uu dhamaaday hadduu Ilaahay yiraahdo xildhibaan senator dooro qof ehel u ah dawladnimada dooro qof daacada dooro qof cadaaladda yaqaan dooro qof aqoon leh dooro Cabdinuur Sheekh Maxamed wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh